بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم magacaygu waa suldaan uga warweeyi aada baan u wada salaamaya dhammaan intay garanaysa iyo intaan garanayba muslimka nabad weeyi xagga iyaga maalin walba waaba berya waa anad kuba fekerin unbaa marmar beri waagii hore maxaan ku idhaahdaa waataan anigu ina odhan jiray dhammaantiin ka soo guda halkaa goor horaana idhi oo anigayni lahaa waxaa dhammaanteen waan arkaynay bay ila tahay aniga dhammaan waynu wada arkaynay laakiin sida looga go-aan qaato howlaha bini aadamka ka hor yimaada ayaad moodaa inay inagu adag yihiin reerkeenna waagan aan baxayey iska daalughaye awdal oo dhan baa mijuhu soo jeeday dhammaantiin mijaha ayni soo jeeday runtii anigii iyo raggii kale aan baxaynay oon idin lahay war naga daba yimaada hadal wuu dhammaaday runta haddii la eego nimankani niman ma aha nimanka aan garab deganahay jaarkaaga lama doonto ilaahay baa kuu doore niman lala xisaabtami karo maaha nin waalan lalama xisaabtami karo waa waalan yahay waa la qabsadaayo waa la xidhxidhaa inay nimankahay miyir aanay qabin dadka beeshaa hogaamiya oon u malaynaya intooda kalena inay la midun tahay hadday dhaqan tahay hadday siyaasad tahayba waayada dambe oo dhan waxaad arkayseen puntland annagaale inay yidhaahdeen haafkeed oo number one sool iyo sanaag iyo annaka iska wadale wixii dad iyo dunyo jooga dhulboobna ilaa kalshaale ay ku qaadeen muqdisho lama ledi kara inay yidhaahdeen waxaa bugiyo bacda haya oo waagay muqdisho rogmato ilaa kismaayo baan anaguna jannada gelaynaayo lana ictiraafi inay yidhaahdeen waad og tihiin waxaad ogeydeen inay yidhaahdeen anna kaalahoo balalaan weeyaan meesha la yidhaahdo maxay ahaydeen gaashaamo ee etoobiya ku taalla ismaamulka soomaalida kelilka shanaad ku taalla dhammaantood inay yidhaahdeen anna kaale gaashaamo waaba ku shahiideynaa kuwii wadaadada ahna ay yidhaahdeen kuwii dhaqankuna ay yidhaahdeen saas oo kale kii boorama joogay ee barasaabkuna uu saas oo kale yidhi ummad ilaa ka u hooseeya ka u sarreeyay maalin kuna ay dagaal caadifadeed wada qaadayaan ma fayooba waxaad ogeydeen halkaa imisaan soo tiriyey muqdishoaan tiriyey puntland baan tiriyey kelilka shanaad baan tiriyey waxa ay dhib ku hayaan oo sheeganayaan inay weerarayaanba haa waxaan ku darayaa jabuuti wixii ka dhacaya dhowr bilood ka hor ay sameynayeen 100 qof ka badan hadday idaacad leeyihiin hadday madax yihiin hadday wasiirra sheegtaan hadday sheegtaan caaqilla sheegtaan hadday wadaadda sheegtaan wixii jabuuti ay ugu hanjabayeen iyo waa gelaynaa iyo waa weeraraynaa gobolku nooga dhici maayo waad arkayseen ay lahaayeen ee madaxweynaha ismaaciil cumar geelle ka qayliyey tan awdal iyada meesha baxa soo dhigi waxay leeyihiin xoolo ay leeyihiin bay inaga dhigteenba inoogu xisaabtamayeenba waaba inala yaaban yihiin rag baa doodoodaya iyo salaadiin baa hadlaysa iyo kuwaa baxay oo waxbaan iska dhicinaynaa leh iyo waa la inila yaaban yahay nimayahow intaa balo oo ay balaayada geliyeenna intii ummadda ugu roonayd ee kolkay waa sheen maryaha ku xidhay ee dejinaysay bay ahayd ilaa muqdisho waa nooga roonayd wax walba waa la siinayay puntland waa u roonay kelilka shanaad aada buu ugu roonaa hadday beses tahay iyo hadday tixgeli kasta tahayba jabuuti iyada teedaba ha soo qaadin siday ugu roonay maalin dhaweytaanoo cidlo jooga intaan la yaabo iska qoslay baan tay ismaaciil cumar geelle ku sameynayeen markaan eegay iyo wixii waxtar iyo dejin 25 sano
u dambaysay ugu yaraan intuu madaxweynaha noqday kolka horeba sargaal sare u roob buu ahaaye ayaan la yaabay waxay igu abaalgudeen. waxaa ii soo baxday nin beri waxaa jiray baa la yihi dhib badnaayoo timir la odhan jiray oo inan la yaala ma gacal la yaalahaa oo aan tolkii la oolin dadkaa u gacalka la yahayna ku haya dhib badan. nin seedigii ahay oo ku diriri jiray oo kolba dabka uu sida damin jiray baa waagii dambe ku hay kari maayo waa ku rarayaa walaalkaya uu yidhi ina mariyo si fiican u xooleeyey oo inantii iyo isagiiba intuu raray gacalkii u geeyey oo ka soo laabtay intuu xoolo badanna sii raaciya gabadha. maalin dhow baa lagu yidhi oo ninkii la odhan jiray timir baa gabays kuu soo dirayo adyad iyo fadeexad ku soo calayu ba la yidhi. seedigii baa lagu odhanayaa gabaygii timir yidhi ma hayo laakiinse jawaabtii markii uu bixiyey seedigii wuxuu ka bilaabay tacabba ay dhammaantaba hadduu timire caayaya buui tolla-aan dhe reer sabatarkaa tiirka qabadsiiyey waxaase taa ku dhaafaa khadraa tahay ninkeedii dhe buui. ismaaciil cumar gele taasaa ii soo baxday maalintii dhaweetay waxay ku sameynayeen seedigii oo dhinaca kale ah ayaa maxaan ku dhahdaa ii soo baxday inay taasoo kale tahay. qoladu qolo lala xisaabtami kara ma aha, abaalka waxaa la yidhahda qolo taqaano maaha. iyaka oo berigay magaalooyinkooda dabka geliyeen cidi kama dareerina iyaga iska dareeriyey buuraha galeen ayakoo waalan bay dib u soo noqdeen. cid walba goortay galalafeen waagii madaxweynihii siyaad barre dhacay oo annakana awdal o dhan noogu soo galeen oona galalafeen haddana waa la dadaalay oo waa miyir qabi doonaane dadka innaga isku xigna waa muslime hala dejiye baa la yidhi. war nabad baan iniin nahay maxaa nagu leynayseenoo gudhuu baa nooga hiliseen baa la yidhi iyo faqash daarood iyo koonfur iyo hawiye bala la yidhaah baad nooga hiliseen oo waa naga maxaan ku idhaahdaa dirkii baa ka baxdeen. waa dirkii kamaanaa bixina waan ku jiray laakiin de annagu soomaalida wadalaayaan inaga diidnay oo soomaalinimun baan inoo eegeynay inagana midnimo necbin may dirkii waa ka baxdeen bay yidhaahdeenoo in la laayo daarood waajibkii ahaabaa ka baxdeen oo waa daaroodowdeen. daarood walaalaan nahay oo dadka iyagii soomaalina annaku wada walaalaan nahay muslimna waanu wada nahay layne mayna baa nidhi. inta waaga horeba horta ay nagu galeen oo ummad badan nagaga laayeen waa nala laayada soomaalidu waa ka xishootaa iyagu isagoo kuwa iyaguma xabaalaha faqeen horta sidaasay ahayd. nimanka noocaasa wax lagula xisaabtamo iyo odayada dhaqanka reer boorame hadalka fiican iyo garta dhigto ee meel walba ka akriyayo ilmaada riyaalniman lala xisaabtami kara maaha. waxa weeyaan walaalnimaan ku bedelanay waagii dadkii ay naga laayeen lana xusi maayo dadkii magtoodii baan ka doonaynaa. xuduudda dhulka samaroon wixii lagu laayay magtoodii baan ka doonaynaa. anaana loo yar ka noqonayo magtaa intii boorama iyo dila iyo kala baydh lagu laayay habeenka ku dhaata kun iyo dheeraadkaanu doonaynaa. waa wada hayaabadee liiskii oo jilib waliba de ma dhib bay leedahay. jilib waliba intii laga dilay baa liiskiisii ka samaystay wixii dadkaa lagu laayay iminkaan dib u doonayna mar haddii la waayo walaalnimadii berigaa aan ku bedelanay beej cusub aan ka bilaabna aan isku ogeyn walaaluudo mar hadday gudhuudii naga baxday iyo kaa yidhi goortay nagu meel gaadheen subaxii dambana nagu arkeen inaan hubkii ka dhinnay waa kuwii dugaagoobay ee buurta u baxay 4 sano iyo cabdiraxmaan oo cali ninka la yidhaah iyo 21 oday oo samaroon ahaa oo goortid ahaa kasoo ururin jireen buuraha haddana kolka iyagu 7 reer u kala fadhiisteen iyo 8 waxay ahayd mooyaan. markaa murti waxa weeyaan ninka la yidhaahdo raggii aabbayaashan dhalay baa dhaafay hadal weyne baa nin laga sheegay. war odayadeedii hore casrujaahili baan moodaynay dee kolka xaaladdu inay taagnayde iminkay ka daran tahay ugaas nuur ninka la odhan jiray kelmad uu yidhi baan inii sheegaya. habar awal nimanka la yidhaha buu yidhi habar awal
nimanka la yidhaahdo goortaad la hadlaysaan ama la doodaysaan ama la shiraysaan ee tala isku haysaan warankiinu ha ku jeedo wey ya iskuulladaasay inooga tegeen iyo kuwa kala badan odayadii habarawal markaad la hadlaysaan warankiinu ha ku jeedo intii kalena waa iska wada habarawalowday maalintii dhaweyto ina biixina kalayda waran un baan kaga ridnay ahayd kolkuu saylac laalaadsan iyo lahaa beesha ciise walaalihii aanu doonaynaa wallaahi beentii bay ahayd uma doonayn ciise wayna kala dilaya isagaa doonayay ina biixi warankaaga ku jeeda mooyaane ilaah baad ku dhaashee maxaad ku heshiin kartaan maxaad kula gali kartaan wax heshiisood ku aamini kartaan marka arrinkaasi halkaasuu yaalla lama qaadan karo dhulka samaroobka waagii hore hadday nabad ku qaateene dowladuhu jireen la xorriyaddii ilaa gabileeyo kilomitr maqnaan maayo annakaa doonayna odayada waxaan kula dardaarmayaa halkaa ka calaacala calaacalka waxaa la yidhaahdaa waa oohinta ragga war calaacalka joojiya go-aan baa la qaataa marka gardarradu kaa badato bari iyo galbeed hadda waa miduga waraac dhowdaan baa yidhi kol hadday garkaa iyo garkaa geesna qaban weydo inaad gabi dhacdaa way xun tahay ood galgalataaye bari iyo galbeed xaaja waa miduga waraac waa nimankaa maanta laga bilaabo idaa ku dayni maayo markay yidhaahdaan wax dambe oo inoo dhexeeyo kelmad damba meesha ma taalo waxaad ogtihiin boqol wax oo kale gabiley cod kuma lihidina innigaana majority-a dhulkiiniina way ahayd inan bay ku yimaadeen raggari mar fog maaha waa boqol jir boqol sano jir oo anigii lahaa maalintii dhaweyta ninka la yidhaahdo saliman gal dee ma waxay ka horreeyeen sayid maxamed cabdillah xasan nimankani oo qaab maamul lahoo qaab maxaanku idhahdaa beelihii soomaaliyada iska deganaa dhulka unbay ahaayeen laakiin qaab maamullo qaab dawlole magaalole oo ilbaxnimo le kama horreynin waa maalgelintii sayidka kolkii maxaanku idhahdaa ay ku kufriyeen sayidka inkaartiisii xoogaygii maalgelintii lagu dejinayaa loogu sansameeyey magaalooyinkan boqol sano jiraan maamul ma yaqaaniin intaa qolo ee aan idiin sheegay dab ma geliyeen iminka ilaa muqdisho haddii ay garanayaan xaqa iyo xuquuqda iyo awoodda aada leedahay anaa ka badan anaa ka rag badan samaroob baa ka badan samaroob baa ka rag badan waynta magaalooyinka joogta iyagu miyiga cidi kama joogto ama maalina miyigay wada joogaan ma magaalada magaalooyinkana waa la wada deganya wixii aada uga calaacasho adoo ilaahay rag ku siiyey oo xoolo ku siiyey oo dhul ku siiyey oo ku badiyey cid kaa yaroo gar daran waxaad uga calaacasho oo aad ku shahiidi weydo ilaahay uu kugu qabsanaya oo idku cadaabaya dhalinyarta waxaan u sheegayaa diyaar garooba odayada waxaan u sheegayaa annaga ay dhen baqan dhibino ma jirte ha calaacaline diyaar garooba goortaana nii yeedhno dhammaantiin salaadiinta nimanka hargeysa inaga joogi waxay weeyaan saddex qaybood maxaanku idhahdaa siyaasiyiinta lagu sheegay waa saddex qaybood kuwo waxa weeyaan dhaxal sugayaal weeyi hadday kuwooda wax ka dhintaan bay sugayaan oo fayl bay la wareegaan waa badan yihiinna kuwo kalena waxa weeyaan inta xoogaaga wasiirada ah wasiirada la yidhaahdo efta meesha wax dowladnimana ka jiran waxay dhiqiraysa waa dowlad wasaarado la kala yidhaha a b c d e f oo qolo heblaayo la yidhahdo waxaad leedihiin efta macnaha meesha aanan lacagba wasaaradda aanan lahayn f bay joogaan kuwa halkaa joogana waa qaar weeyaan wasiirada lagu sheego waa shaqaala iyagu cadowga ay leeyihiin iska ilaaliyaana waa in adeerkooda in lagu bedelo maaha cadow kale male cadow samaroon ma laha iyagu ninba in adeerkii ka ugu dhow in lagu bedelo ayuu ka baqayaa qolada labaad weeye qolada saddexaadna waxa weeye marka kuwaas waa shaqaale qolada saddexaadna waxa weeye kuwa aan waan doorana la yidhahdo qaar guurtida yihiin qaarna ay yihiin baarlamanka kuwaas shacabkay ka wakiil yihiin waa la soo doortay
dee cidina ma eryi karto cod bay meesha ku joogaan kuwa wax allo waxay kuwan kale baqaya ama waxba haymahayne kuwaasi dambiilayaal weeyaan nin ba u hadhadli jiray dadka nin qura hataa dadka u hadhadli jiray oo ina wanaagsan ahaa waagii hore axmed yaasiin ninka la yidhaha khayr allaha siiye laakiin isaga waayadii dambe goortuu wehelka waayay raggii waa iska aamusay wuuna soo durdurin waayey oo nagu soo biiri waayey goortaan buurta gallay axmed yaasiinna soo gurmaan leenahayo way xidhmaysaa meeshaasi here waxay noqotay maxaan ku idhaahdaa jeelmaduunkii ninkii siyaad barre sheegay baan hor fadhiyaa uu yidhi haddaa ka hor dhaqaaqana galalf baa adduunka ka dhici uu yihi nimankaasay noqotay runtii nimankaasay noqotay siyaad barrena allah u naxariisto madaxweynihii samarood ee loo dhannaa in soomaaliyeed kii samaroodna uu ahaayo soomaaliyeed ee loo dhannaa buu ahaa allah u naxariisto ninka cali samatare ayaanta dhaweyta dhintayna madaxdii soomaaliyeed buu ahaa allaha u naxariisto samar iyo imaano dadkoodii allah ka siiyo dadkii imika warar badan ma helo anigu waa nacay wararkaasoo dhan markay dhaxdintoodii badtay wixii dhowaan dhintay sida ninkii nakruuma iyo beeshayda ka dhintayna allaha u wada naxariisto samar iyo iimaan iyo inta kale aanan ogeynba dhulgariirka ka dhacaya buurama wuu inii digayaa dad yahow waa kii 80kii bilaabay markii arrimuhu adkaayeen reer buurama waa ka ilaahay tusaalun buu inagu siiyey talyaaniga maalintii dambe dadka ku laayay masiibooyinka noocaasi baryahan way badan yihiin 80kii bay bilowdeen dhulgariirkaasi ilaah bay naga haya ilaahay ha naga sii hayo waa kii laakiin soo galo berigii ka gabiyey ee yidhi dunyahow gariiray adigaa gilgishay adaa dadka ku gala garaa daama hagaagixin oo hagamashayin weligaa gawda sii hay ilaahayna garo ha nala gu-in buu soo galo berigii ku duceeyey marka insha allahu nala gu-i maayo laakiin waa idiin digayaayo in adduunyaduba meelo sidaas iskaga wada dhimanayso markaa dhimashadu ay ku roon tahay adoo xaq ku taagan oo sharaftaada iyo dhulkaaga iyo dadkaaga iyo dumarkaaga iyo difaacaya qoyskaaga ayaa wanaagsan baqdin ba idinka badatay baqdinta ilaawa lughayana lama qaadan karo raggeedii way joogaan jananaa u jooga dhalinyar baa u joogta alxamdu lilaahu raggu waa ii koray iyo gabdhuhuba khayr allaha siiye beesha samaroon ee gobolka awdal beesha ciisaan walaalaha nahay nala degan dhulka aan wada deganin weliga iyo walaalahana nahay waxa isu kaaya diri jiray dadkan qoriga dabkaasi tawaaran ba isu kaaya diri jiray eedhe waa laynagu soo socday wakaa dhulkii sidaad isku diraysin ka daraysto dhulka ka wada qaataa la lahaa mar haddaad maanta meel aad goor ahayn uun aragteen badde alxamdulilah laakiin laynagama qaadan karo waxayse u badan tahay inay jidaynayaan ninba wuxuu xoog ku qaadan kara ha ku qaato dhulka siyaasadda iyo xoolaha yara maalina kala qaadanaya iyo wax loo dul qaadan karo dhulka iyo carada adeer 20 awow ka badan ayaa noogu soo dhimanaysay noo soo difaacaysay oday baa beri yidhi isaguna awowgay waa kii beri yidhi waan la yaabi jiray casruljaahili baan sidoo kale moodayne waa kii yidhi wuxuu yidhi rag hadduu nagu taamay jeeroon bar ka taaba buu yidhi tukani maayo salaad buu yidhi oo tegi maayo xashkii tirini maayo qur-aan oo talin maayo wax sanoo tafnaagood qaban maayo buu yidhi war maantoo kale markaad eegtid tiinakii baa taagan anna taasaan taaganahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed nuur faarax waa taliyihii ciidanka aarawi oo hoggaanka yahay suldaan wabad marka hore waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogto assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar labaadka waxaan ka hadlayaa 2 qodob oo gaagaaban qodob waa qolada muslim dhibowga ah ee soomaali dhibowga ah ee loo yaqaano saddexda ummadda muslimka ay ka xishooto ku talax tegay weyn ee snm loo yaqaano maamulku sheegaa waa koox hubaysan
nabaddiida muslimnimowa saddexdaa waa saddexdee waa dhac waa dhagar waa dhibta soomaalida iyo dhulbo war hadday dhicii iyo dhagartii iyo dhibtii ay soomaali ku hayeen waa la arkay umana shaqaynaysa haddii hadday dee muddo 30 sanaa ku caana cabbeen uma shaqaynayso laba erayoo kalena waxaan odhanayaa intaa waxaan leeyahay qorda esanamtaan leeyahay waar waxbaha isku laadhin haddaad maanta lughayo doonayso waxbaha isku laadhin ma leeh waxaan iskugu imanaynaa geed deeble hargeysaan iskugu imanaynaa burcaan iskugu imanayna iyada taa waa futo loo hayo anu futo uma arkadi haddaad sheekh leedahay sheekh waan leehay haddaad ciidan leedahay ciidan waan leehay haddaad dhalinyar leedahay dhalinyaro waan leehay dee haddaad nabadii yareydaan anu kuu nanabayo igu mooday dee inaad iga sarrayso war waaba laysbaran anugu gabayo geeraari iyo wax kale ma garanayo waxaan se hubaa inaanad soo dhaafaynin oon hargeysa iskugu imanaynaan kuu hubaa taa iyada sool iyo sanaagna waxaan leehay waar burca hadday soo socotay iminka maraysa laascanood iyo cayn warabtiyaal saidi kumaan ogeyni wax iska ceshaan iyagana leh midoobaana leh daarood ahaan u midooba soomaali ahaan u midooba ya harti ahaan u midooba kooxda argagixisada ana meel uga soo wada jirta la iyagana waa ta labaad ee samaroonkana laba eray baan odhan nin baa wajaana dibi geeyey hangool buu sitay dee ku tuugaa dibigii inuu ka dul xado damcay dibiguu sii furayuu arkay waa beesha iminkaan saynuun buu ka tuugii hangoolkiibuu ku jebiyey diinadii uu ku kaco hangoolkiibuu ku dhiftay hangoolkana hare wuu ka qaatay dee hangoolkii kolkuu inuu sidaa ku jabana dee ma doonay uu sii eego wuxuu yidhi marag ku raacday war galoolkii hore uga goormaa la dooni siduu kol keliya un qofka ugu kala jabo anu sabaroonka waxaan leehay gobolka awdal degan iyo ciisaha ilaahay wada dhigay ee calaacalaya maanta hayaa la qaadanayaa kanaa la qaadanayaa how war waxa qaadanaya waa cayadee waa cayo waa qabiil yaroo dee had garanayso had weligaaba ag joogtay had ka adkayd waxii baad wax kale ka dhigaysa anu waxaan taaganahay ninkii hangoolku ka kala jebay yidhi waar galoolkii harago goormaa la dooriyey war dadkii gobolka awda goormaa la dooriyey dee taay waa taa tu kalen odayadaan leehay samaroon waar nabadii dab bay dhashay dab sicii rimanaa bay noqotay sacbaa dee dab dhalay sicii rimanaa ee qofkii sugayey ee neefkuu ku dhali lahaa haw dabka ka dhalay ee siciina dee haw kulayla u leefi kari waaye ilmihii ilmahaan looga tegi war nabadaad dhowrayseeni sacaa dabka dhalay noqotay waar waxa xuni wax xunun buu wax ku leeyahy waxa xuni wax xunun buu wax ku leeyahy anigu waxaan leehay oon ugu baaqaya samaroonka iyo tolka kale ee nala degan ee soomaaliyeed ee ciise waxaan ugu baaqayaa oon aada iyo aada ugu baaqaya ha u diyaar garoobaan maamulka muslimnimowga ee fidmada ah ee soomaali bi'iska ee dhaqan bi'iska ee ummadda dhibay siday uga fadhiisin lahayen waana ka fadhiisin karna balaayalan waan ka fadhiisin karnaa ummadda maxay kolla kilal ka fuulayaan kolla xamar ka fuulayaan kolla ka fuulayaan jabuuti waan ka fadhiisin karna inaan ka fadhiisinaa loo baahanya caalamkuna ha ogaaday inaan nabadgelyadoodii ay nabad diideen inay nabad diideen ha ogaado caalamku waana isku imanaynaa calaacal dambe inigama maqli kara odayga dambe ee saami baan doonaya ayuu saamiga ka doonaya
ما يساق برنا سيندي وهو يساق أدنى سمرون باتها سامي قدوني سمي عبالنا وانين ماشات كجوكتا ككع كله سامي كل كاد ودي كل كاد لا هاي سامي كان أفهمونه مرورثمي دنبيلات كل كاد مدحوينها لا هاي نيك قاعد كل جلس يرايا كم قف مالك هادي كون يشام بقول قف مالك قرة كادي إما كان أنتم ما أو داير يا رب بدلوا هالكايم إذا أنت أو كادي لا دكت كيش شلون قدام ليش صدق هذي دارت أفرتي ماشى وكوذا الجرعي كحيت صدق هذي ماشى وكوذا قال كدرت كيف يا حميد هاي أو ودنا كسر بقى يا حميد جاري سكوا تستطيع عيدا كودي أو كجرو كيف يا نور سكوا ودنا عسي صعدا حبض اللي يقول في كجرو هو اللي حياة كجلان أنا جاي نوتر سيرين توقع بقى عن كل لا مدحوينها هذي مدحوينا معها وبرعد ونبديد ومداؤب بنتي أي وضعنا ويسوق قاعدتي الصومال لا مراني لا لا هاي أنا وحن لا هاي سمفرونك وحن لا هاي عود الدقن هنا التاني وان سوقنا هاي سق وان سوقنا هاي هنا التاني إنه السبيل دي أو سميست إن إلا يلومي بمودي هنا بيحنا ما بيسوقنا هاي rag laga horeeyaa waa aadun kugu siibti godobahay galeenna way is ogyihiin waa samarhoon calaacalka jooji ciidanku meel kastuu joogo ciidanka aarana waxaan leeyahay meel kasta oo joogto diyaar garow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu